السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا warbixin sir ah oo aynu idii hayno. Donald Trump oo amray in la duqeeyo Iran balse ka laabtay markii ay diyaaradihii hawada galeen. Madaxweynaha Mareykanka ayaa amar ku bixiyay in weerar xagga cirka ah lagu qaado bartilmaameedyo ku yaala dalka Iran. Balse go'aankaasi si lama filaan ah uga laabtay markii ay diyaaradihii duqeynta fulin lahayd ay hawada gaareen. sidoo kalena maraakiibtii ay u diyaar garoobeen hawlgalkaasi lama oga sababta ka dambeysay go'aanka madaxweynaha balse wararka ayaa waxa ay sheegayaan in go'aankaasi joojinta duqeynta aysan la qabin Mike Pompeo iyo la taliyaha amniga John Bolton. xiisada Iran iyo Mareykanka ayaa cirka isku shareertay maalinimadii shalay kadib markii ay Iran soo riday diyaarad kuwa wax basaasa oo uu Mareykanku leeyahay taasi oo ku fadhida 130 milyan oo dollarka Mareykanka ah. wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in meelaha uu Trump amray in la weeraro ay ka mid yihiin xarumaha raadirada Iran iyo kuwa kale oo military ahaan muhiim u ah. Iran ayaa dhankeeda sheegtay in ay iska difaaci doonto isla markaana aanay ka gorgortami doonin arrimaha qaar. Fadlan haddii aad inagu cusub tahay subscribe saar gambaleelkana taabo mahadsanid.